madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta tababar u soo xidhay dufcaddii labaad ee carbiska barnaamijka shaqo qaran oo uu tababar uga dhammaaday deegaanka Dararweyne oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan caasimadda Hargeysa. munaasabad kooban oo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku soo xidhay dufcadda labaad ee dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa kala qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka, hormuudka barnaamijka shaqo qaran iyo marti sharaf kale oo kooban. waxaana goobta laga jeediyay hadallo salka ku hayay guulaha laga gaaray barnaamijkan shaqo qaran, dhiirigelinta dhalinyarada iyo sidii uu barnaamijkani wax uga taray isdhexgalka iyo isfahanka bulshada. agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muwaadinka oo gooreyntii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri qiimeyn kadib markii golaha wasiiradu isla garteen in barnaamijka shaqo qaran ee tijaabada ahaa uu guuleystay isla markaana go'aamiyeen in barnaamijka la sii joogteeyo waxaanu u diyaar garownay ama aanu diyaarsanay qorshe hawleedkii loo adeegsan lahaa hirgelinta dufcadda labaad ee shaqo qaran oo mudaysan kaasoo koobaya hawlaha ugu mudan ee la fulinayo si waafaqsan nidaamka maamul wanaagga. waxa taas barbar socday gacan ku haynta maamulka iyo kormeerka dufcaddii koowaad ee shaqo qaran oo ku guda jiray muddadii shaqo carbiska iyo adeega ama internshipka la yiraahdo ee sanadka ahayd oo haatan soo gabagabowday. mudane madaxweyne sidaad xogaal ka tahay waxa laga maarmaan noqotay in dhismayaal hooy iyo adeeg lagu kordhiyo akademiyada shaqo qaran maadaama ay hooy ahaan qaadi karaysay 400 oo qof oo kaliya. waxaa laga fursan waayay in lagu kordhiyo dhismayaal la seexdo oo qaadi kara tiro kale oo dheeraada iyo dhismayaal adeeg. taas darteed waxaanu dhisnay hooy cusub oo ka kooban 4 guri oo isugeynta ay qaadi karaan ay dhan tahay 400 qof iyo 40 musqulood iyo xamaamo oo wada jira. waxaa akademiyada ku soo kordhinay dhismaha howlweynaha lagu cunteeyo oo cabirkiisu dhan yahay 35 mitir iyo 15 kaasoo ku qalabaysan kuraas iyo miisas shub ka samaysan oo lagu shaqlay marmar cad si ay u fududaato nadiifinta wasakhda iyo qashinku. dhismaha waxaa noogu deeqay hay'adda qaramada midoobay ee shaqaalaha International Labour Organization oo dhismihiisa iyo qalabayntiisaba qandaraas ku bixiyay. dhismahani waxa weyn ku soo kordhiyay fayadhowrka, cuntaynta dhalinta, bixinta tababarada iyo guud ahaan bilicda goobta. cuntaynta kasakow waxaa dhismahan loo isticmaalaa bixinta casharada iyadoo ay ku rakiban yihiin 2 projector oo kuwa wax lagu tababaraa. waxaa kaloo sanadkan kuliyadda ku soo kordhay dhismayaal adeeg iyo maamul oo cusub kuwaas si ay isugu filaato kuwaasoo kala ah dhismaha masaajid bireele oo goglan 3 xafiis iyo 2 musqulood oo maamulka kuliyadda iyo ilaalada amniga loogu talagalay, 1 qol oo xabsi ah oo leh 1 musqul, 4 qol oo jiingada oo macallimiinta iyo shaqaalaha ay hoydaan, iyo ganjeelo labaad oo dhinaca waqooyi ee kuliyadda ka sameynay. dhinaca kalena taliyayaasha ciidamada militariga iyo booliiska ee Somaliland iyo waliba wasiirka gaadiidka oo halkaasi hadallada iska daba qaatay ayaa si guud u hambaliyay guud ahaan dhalinyarada barnaamijkani ka qalin jabinaysa maanta iyo waliba guulaha laga gaaray barnaamijkani. aqoontii Somaliland inta la ururiyo iyagoo markii hore academy ahaa haddana loo bedelo inay noqdaan hogaamiyaasha ciidamada mustaqbalka dheer. waxaan idinku dardaarayaa inay u diyaar garowdaan hawl adag oo reform ah oo ciidamada halkaa raggaas soo gaarsiiyay ka sii dhaqaajisaan oo isbedel weyn oo dunida maanta la jaan qaadana ku samaysaan. waxaa laga yaabaa dhalinyarada halkan joogta inaanay war ka hayn amba history kaanay ka haysan shaqada qaranka ee la geli jiray waayadii hore iyo maanta difference-ka u dhaxeeya inay waxba ra'yi ka haysan way yaryar yihiin. waxaanay maanta halkan ku joogaan waa mudhihii gobonimada ee qaraadidii loo keenay loo soo dagaalamay mudhaheedii ayay halkan ku joogaan oo ay ku nugul yihiin. aad iyo aad baan u bogaadinayaa ugu hambaliyaynayaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa tacab bay sameeyeen tacabkoogaas inuu xasiliyo
mustaqbalkana uu xusi doono qarankani waa legacy uu ka tegayno xukuumaddan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadani ka hadlay ayaa ugu horreyn bogaadiyay dhalinyaradani ka aflaxday kuuriyada barnaamijka shaqo qaran waxaana uu tilmaamay in ujeedada barnaamijkani tahay sidii isku duubni iyo wadajir loogu gaari lahaa himilooyinka uu qarankani hiigsanayo waxaana uu yiri waxaan ku amaanayaa marka hore inaan noqoteen intii markii cilmiga loo baaray aqoontoodana soo gashay oo qofna aanu khiyaamay dustusiyay gacan qabad ku imanin kiibida laga saarana aad iyo aad baan ku hambalyeynaya waxaa la yidhaahdaa qofkaa dheer wax looga tilmaamo ninka aqoon badanna wax looma sheego da-diina iminka halkan shaqaa qala joogtay oo kuwa idinla midka ah jaamacadaha ka baxay waxayna si u heleen casrigan qofku isagoo gurigiisa jooga aqoonta tuu doono uu ku noqon karo baaxuur ama professor uu aqoonta intuu doono ka gaari karo taasoo ay da-yartu gashay dadka waaweyn badankoodu aana helin marka waxaa laga yaabaa ka 20 jirka secondary ku jira maanta mowduuc kasta oo laga hadlayo ama subject kasta oo laga hadlayo inuu aqoon fara badan leeyahay ama markuu baahdo uu ka helayo casrigan daatada internetka iyo Google marka wax badan idin tilmaami maayo waxaan ka daragsanahay ku iman qaba inaad aqoon badan leeyahay laakiin waxaan idin sheegayaa aqoonta marka lagu laro waayo aragnimada wax badan baa soo baxa Cabdijabbaar Maxamed Xuseen Television-ka Ariel Hargeysa shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab